sheekh gabar ayaa masaafaystay kadibna waan la aqalgalay waxay ii dhashay ilmo ayuu leeyahay daawadahan hadda sheekh meherkaasi muxuu noqonayaa ilmuhuuse maxay noqonayaan xaaraan mise xalaal arinta ku saabsan masaafaysiga dumarka inta la kaxaysto meel lagu soo mehersanayo waa wax khilaafsan shariicadii nabi maxamed la yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh quraanka kariimka daahirkiisa waxaa ka muuqda guurku inuu u baahan yahay wali gabadha wali meheriye inuu u baahan yahay wali la'aantiina uusan soconayn axaadiista nabiguna sallallahu alayhi wasallam oo quraanka sharxaysana arintaasay si cad u tibaaxday oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiis far badan buu ku tilmaamayaa guurku inuusan wali la'aan asaxaynin sidaas daraadeed gabadha ehelkeedii waligeeda laga kaxaysanayo meel lagu soo mehersanayo waa arin totally shariicada khilaafsan waay arin saxsan ma aha حتى مذهب شافعي هاي صوماليدا مذهب كهاي فقهي أها كتبتي سوحة كعد إنه سنولي جو مهر يعني مهر وحن جوركو إنه مهر سنولي الآن أصحين سيدا إمامك كتبتي سمام شافعي كتبتي سيو مذهب كتبتي محو هاي الدنباء لقى قرى مختصرات كي منهاج كي وحي لم ده هي كتبتي كلا كسي محو هاي كدم بيسي أم كتبتك كسي كيرير كل وحي عضينا يان ولي الآن إنه سنمهركو أصحين ساسا مركا أصل مسألة مركا مسافة هي جورك نوع ودعاياي إن بدنا أمد الصوماليات إسكسو جورسن شرتي عرورة بدنا كل شين وحا وحي مثل وذا خلديهين وعلمه مقرعيا ما وحي مهليسينهين ضدك إسكو قبسيل يليا مسألة سوى مسألة كله ووحويان ضدك سداس إسكسو قبي أما هذا بإسكو قباي طبعا سيداسي علمادي marka joogtay u sheegeen waa qalad laakiin wixii uu dadkii marka ay diin ugu noqonayeen baa saa wax ugu sheegay dadku marka inay diin isku guursanayaan ayay masalada u haysteen wixii sidaas oo kale ku dhaco jahli iyo aqoon darro ku dhacana wuxuu leeyahay shariicadu ictibaarteedu leeyahay oo laga daba tagi maayo muxuu ahay markii uu xaq la fahmo oo arinta la garto inay khaldan tahay wixii ka dambeeya waa in la iska ilaaliyo laakiin wixii hore saa u dhacay dadkana aqoon darradu u geysay sidiisa la isaga deynaya khaasatan hadii markii dadkii gabadha waligeeda ah ay ka war heleen oo masaafadan iyo guurkan ay ka war heleen ay sida raali ku noqdeen tasarruf aduliya la yiraahdaayo isagana dhankaasi wax waa looga raadin karaya sidaas daraadeed wixii hore u dhacay ilma caruurtuna waa sax dadka saa isku qabana haday iyagu guurka cusboonaysiinayaan culimada jumhuurtoodu waxay qabaan guurka waa la cusboonaysiin karaa isagoo sax ah taa la cusboonaysiin karaa haday guurka cusboonaysanayaan oo shaki baxayaan dib male laakiin haday sidooda isaga deystaan caruurtii ku dhalatay waa sax ayaguna sax bay isku qabaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala laakiin markii xaqu cadaaday kadib la ogaaday arintaas inay khaldanto shariicada khilaafsan tahay wixii ka dambeeyay ruux isagoo garanaya haduu u bareero waxaan leenahay markaasi guurkaagu sax ma aha